anigoo Cabdu Saciid Colhaya oo kamida jaaliyada qurbajooga gobolada Awdal iyo Sanaag waxaan maanta halkan isugu nimay anu joognaa maamulihii ama Cali Xayd baan joognaa oo kamida gobolka Awdal waxaan la joognaa maanta halkan maamulihii dugsiga Cali Xayd oo magaaladiisa Daahir Cawaale marka isaga ku wareejin doona haduu yahay yaaho oo kamarada oo naga warami doona wixii baahida jirta meesha isaga naga warami doona waxa wixii warbixina haday baahi tahay iyo hadii ay wax kasta si kasta ay tahay marka waxaan horta marka hore ku wareejinayaa Sultan Ibrahim Jaamac Samatar oo halkan naga warami doona aniga waa maamulaha dugsiga Cali Xayd magacayguna yahay Daahir Cawaale waxaan halkan igu soo gudbinayaa walaalaha qurba joogta ee gobolka Awdal iyo Sanaag in baahida dugsigan haysatay muddo dheer dugsiga waxaa la dhisay taariikhdu markay ahayd 1997 wuxuu la dhisay muddo 14 sanad ka marka lagu daro 14 sanadooda muddada inta leeg wixii maalintii la dhisay ilaa maanta dib ugu soo noqotay ma jirto sidii wax loogu waxbarasho loogu bilaabay wax dayactir lagu sameeyay waqtigaas waliba laga tagay waqti barandihii iskuulka oo sawirkaad ku arki doontaan iyo dhiskii soo qaybo badantigo biyuhu gudaha u soo galaan roob markuu daayo ay biyuhu soo galayaan gudaha daaqadaha ka soo galaan marka dhiskii soo qabiyo ka ahaa waqtiga laga tagay dib loogu soo noqonin ardayda wax ku baratay imika waa dufcadii 8 ka baxaysay iskuulka ayaa ka baxda waqtiga ilaa imika macallimiinta wax ka dhigtay dugsiga ma tiradoodu ma dhaafin 3 macallin وانا باهيدا كوada ugu daranaysay iskuulkani 3 macallin dawladdu shaqaaleysay sanadkan ayaa wax shaqaalo jooga jira waxa kale ardayda dhigataana waa 6 class bay ku dhigta classii 7 iyo 8 waxaan awoodi karin inaan sii wadno waxaan u bedelnaa magaalooyinka markii gaaraan ardaydu fasalka 7 waxaan geynaa magaalooyinka wixii awoodi karin waa in magaalada tagana oo iskaga saaqada marka halkaas iskuulkii kala haray ka baabaa marka baahida koowaad imika nacam dibta ugu danaysta horta waa xagga macallimiinta on hello bal yaastii amba laba amba 3 macallin ina hello kale waxa kale oo danaygoon imika 4 class baa loo dhisan ardayda wax ku baratana waa 6 class taas ay golo dhismayay aan laanay wali ina 2 class amba 4 class kale inuu iskuulku gaaro istaandariga lagu talagalay waan haysanaa qalabkii waxbarashada oo dhan sida syllabuskii oo dhan waan haysanaa laakiin wax loogu dareemo ka baahida macallimiinta waxa kale oo jirta iskuulka wuxuu ku yaalaa meel reer guuraagu ku badan yahay oo dhul aan beer lahayn dadka reer guuraagi waa dadka fiilika u baahan inta badan fiilika lagu talagalay fiilimadii inta badan waxa la geeyo dhulka beeraleyda ah in marka hore u baahay cinkaas ka jirin inoo yimaadeen kasta hay'adda WFP timid haddana wali wax ka mahayno taana waa baahida labaad ee codsanayno midda saddexaad waxa weeyaan waxa dhigtay dugsiga caruur agoon oo fara badan oo aan awoodiba karin ibsadaan xitaa buugta iyo qalbaanta iyagoo aad u tabar daran oo iyagoo jecelnahay in laga caawiyo wixii ay agabkii wax ku daran lahaayeen wax ku qoran lahaayeen xitaa ma awoodi kara ilmuhu barcadiisado oo dresskiis ku dhiganay dhamaantood waxay ku dhigtaan dres ardayda iskuulka markii ay awoodi karaan waa ka deynina xitaa barca qaata ka taasina waa dhibta saddexaad in haysta marka waxaan leenahay markii hore iqraa'ay kastoo caawimaad badan loo geysan jirtay imika muddo 6 sanadood lama arag oo dib loogu talagalay marka waxaan rajaynayaa inaad ka soo gargaartaan wixii taalkiina gargaari kartaan insha Allah oo ka hadlaya iskoolkan Cali Xayd marka ma gudoomiyaha gudida waxbarashada waxaan halkan walaalahayaga qiimaha badan leh ee jaariyadaha dibadda aanu soo dhow soo jeedinayna baahiyaha faraha badan leh ee ka jira iskoolkan Cali Xayd marka hore waxa weeyaan iskoolkan Cali Xayd sidii kii hore maamuluhu soo sheegay taariikh badan buu dhisan yahay markastana waxa ku keena leecitaan fara badan ku keena dadku reer guuraaya fiidinka quudinta carruurta oo iskoolku ana u lahayn oo markastaba qofku markuu awoodiisa u waayo wax kasta inuu qofkii masaariiftiisii ana u helin ee waqtiyada bal waayo inuu qofkii dadkiisii hadana dib u sii haysto ayaa nusqaan aad fara badan oo tan ugu keenay ayaa lagu keenaysa waxa kale oo jirta iskoolku inuu qaybo sidii uu sheegay maamuluhu ka dhiman ay jiraan biyuhu dibadda yimaad barande xitaa aan leenahay garoon deyr oo kaasina ana deyrana noogu xidhnay oo tabaalaha badan iskoolku qabo ardayda tayadeeda dhigata aad imka ugu fiicanto markasta dadkaasi kiyo iska daciif oo markasta tamartiisa isna uu yiraahdo qof waliba qof sidoo qof ugu soo gacan qaban lahaa
كيو آد سفي عن سكور قصون قصلا على حيران قد كان الله يسوط عقله عبارها فرح بدل لا إلا سد حسري جيتا فرح بدل لا بركة عازحينا أسقين حول لا ويرشان سدا سكور كي واحد كل عطي إنه خصوصي دايت ويرشوا وتمترد كده يودو أم بدك بركي مراه في الندري هل كاسا وقت حروب طلبوا قضية لغة سيطات قرية سكور الذي مضمان تكار على هاي حروب تسورها عي من مقدمة بقي وقراها على حي waxaan walaalahay qiimaha badan loo sheeganaa mar kastaba dadaalo fara badan ay naga soo gaaraan xagga macallimiinta sanadkan markay naga tagay baa 3 macallin wasaaradda nooga shaqaaleeyay ka hor hal macallin oo shaqaaleysnaa ma jirin in kool joogo 3 macallin oo waxa jira tabaruc ahaan dadka wax ugu dhiga tamartii wax lagu siinayna aan deegaanka abaaraha jiitay dadku naafada ay ku keeneen aan lahayn waa tabaruc ahaan dadkooda sidii wax u sii bari lahayn jooga kuwaana waxaan doonaynaa iyagana sidii loogu meeleynaa qof walba sanad anba إن كان يرجو كل شيء كرا تبرع أنت كلام ده قف في فيه سيبا بقى سجل فيه سيب أنت ومسي عطيسنا كرايو مكاور على قيمة بدلنا وحنا شيء قلنا إنه كل يتدار فربنا وحق عبارها وحضرنا لك السوق الثاني وإسكور كده مشان يتطلع كسي حب بلطي وواحد ده ترى بيش وياي وإسكور كده يعني بيصير أو ترينا يهين جاري ده قيمة بدلنا نلقى مقالين كده ده haddana in si gaar ah haddana waxbarashada xoojin gaar ah noogu soo saaro ayaan doonaynaa iyaguna si aada ama nooga soo taakuleeyo xagga waxbarashada siiba xagga macallimiinta amba xagga kale fiidhanada amba xagga tamardarrada ciyaalka ka jirta ee kuwa rabbiirkooda aan heli karin laftoodana taakulaynaha loogu dhexeli karo waxyaabaha caalamka lagaga qayb qaataana waxa weeyaan wax la cuno qofku helo waxbarashada kolkaa dadaal qaybada oo rijo harasaa waxaan u arkayaa ama fikirayna waxbarashada tahay sidaa darteed cidii waxbarashada kala dadaashaa jaahilnimada dadkoogana taariikh dalka iyo dadkaba afcadayana taariikh laba indoogaan u noqon karta kuwa maanta sidaa jiitanka wax ku baranayaan ay ku anfici doonaan kuwa maanta gacan qabadka ay ka helayaan oo taariikh laba indoogaana oo markasta aanu sheegno ardayda inay jaariyadaha dadkooda dibadaha joogaa inay si fiican maalin kastaba aan ugu qabano shir inay si fiican u soo gacan qabtaan oo kasoo gaari gaaraan waxtarro qiimo badan oo iyaguna in aad ugu niyad fiican yihiin ardaydu mar kasta weliba ay codsadaan inay waxyaabaha qurbajoog markay yimaadaan cala xad markay yimaadaan hanaga qarinina waa dhiirigelin walaalaha wax soo baranaya soo kacaawiyaan gelina taasin markaa sidaa darteed waxaan sheegaynaa ama hadalka soo gabagabaynaya walaalaha qiimaha badan leh xagga waxbarashada in aad la nooga soo qowad saaro annaguna qodba wixii dhiba jirta walaalaha la soo socotiino sidaa iyo baraka allahu fiikum الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معاملها دكسوغا iyo gudoomiyaha waxbarashada labadooduba aad iyo aad bay mahadsan yihiin waxaynu maqlaynaa halkan waxaan ka maqlanay iyo cabdihoosna noogala joogo qurbajooga gobolka awdal waynu maqlanay warbixintii ay soo jeediyeen iyo baahida meesha ka jirta hadda ka horna waan soo marnay iskuulka dugsigan hoose dhexeeya calxayb baahidaa ka jirtaa waa wax dhala waxa ugu daran ee loo baahan yahay waxa kamida 3 qodob bay ka dhawaajiyeen qodobka koowaad waa ahaa feeding center waa meelihii looga baahnaa in lagu sameeyo feeding centerka ama meesha lagu quudiyo ardayda waayo dadkan waa dad reer guuraaya waa dad kolba meel tegaya sidii ardaydii looga reebi lahaa ee meesha ay ku cunlahay waa meelaha loo baahan yahay feeding centerska loogu talagalo mara weli looma sameeyo waxay sheegeen in dhowr jeer loo yimid oo weli la sameyn taasi waa koo waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha ku shaqada leh ee wasaaradda waxbarashada in meelaha koobaad ee laga sameynayo feeding centers in lagu daro dugsiga hoose dhexe calxay ta labaad iskuulka waqtigii la dhisay waa laynoo sheegay ilaa maanta male fenskii ama meesha yaraadeen waa fasaladii oo sidoodii oo qaawan malaha baalkeeda loo sameynayay barandihii roobku toos buu usoo dhacaya xafiisku soo galaya buugtiibu ayuu qoynaya waxaanu ka codsanaynaa hay-adda unicef iyo hay-adaha ku shaqada leh in bal horta loo sameeyo intaana loo sameeyo loogula dadaalo in 2 fasal oo kale 3 fasal oo kale loo sameeyo waayo macalimiintu waxay noo sheegtay inay ardaydu yihiin 7 fasal 4 فصلنا يبسي واحد كان دماغه كله في المسجد دي كله حتى كون واحد نوجه وبعندي دور دورين من إن يقولوا تمدوا على عملية تمد ولينا الودس وعن قاعد زنا وزارة برشاد إن أي إن ضمن حريص لكل يبتو وأرضنا من الله من الإجرام لولا هي
in laga soo gaaro oo dugsiga loo dhiso taasina waa mid waxa kaloo meeshan taalla oo ay ka hadleen dhibaatooyinka ay ka hadleen macallimiintu waxa weeyaan waa macallimiin la-aan dugsiga intaa leeg ee aad sawirka ku arki doontiin waxaa jooga 3 macallin oo mushaarku waa 3 macallin waana 7 fasal waad garan kartiin sida maanta ardaydu ay u laadeen macallinkiiba waxa ku soo ergeeyo 2 fasal ama in ka badan ama 3 fasal ma dhigi karayo waxa weeyaan wasaaradda waxbarashada ee gobolkana horaan ugala hadalnay in markaa tagnana waan kala hadli doonaa waxaan ka codsanaynaa wasaaradda waxbarashadu inay dugsiga hoose dhexe Calaxayd ay kormeer u soo diraan ay macallimiinta ilaa 3 maalin ilaa 4 maalin oo kale u baahan yihiin sida ay ballan qaaday wasaaradda waxbarashadu ballanka ay fuliso waxaan ka codsanaynaa macallimiinta iyaguna jooga ee 3 maalinna ee dadaalka fiican wada inay iyaguna halkan kasii dadaalaan way dadaalkooda sii kordhiyaan si ardaydooda iyo dadkooda ay wax u barmeedkii ama madaxdhaqameedkii gobolka gaar ahaan Suldaan Ibraahim waxaan ku dadaalayaa inaan u tago waxbarashada heer gobol iyo heer degmada sidii laydinku soo dadaali lahaa ee baahidiina maanta loo dhammaystiri lahaa ardayda oo nagala jooga qurbajooga gobolka Awdal iyo Sanadna waxaan faranaa leenahay waa ardayda waryaarka indhaha ku aragtay runtii wixii ay ugu horreeyay weydiisanahay dugsiga hoose dhexe Calaxayd maxaa macallimiin joogay soo xudhiga wadiga warbixinta arkaya idinkana waxaad ka codsanaysaa inaad dadkii dibadaha ee qurbajooga aad gaarsiisid oo wixii ay dugsiga u soo qaban karayaan iyaguna ay u soo qabtaan sidaasaan ku soo gabagabayn lahaa billahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan ka codsanayaa inaan loo qabto macallimiin fiican iyo dugsi iyo laga dhigo dugsi loo dhiso iyo macallimiinta loo fiican iyo ardayda si fiican u dhigato iyo loo gudbiyo iyo macallimiinta si fiican u dhigato iyo wiilkii garoonka loo dhiso خلاص كده حد بطيء مقعول سعد إبراهيم حسين سعد إبراهيم حسين marka koobaad waxaan salaamayaa walaalahayga noo yimiday sida Suudaanka guud sida Ibraahim Jaamac Samafar iyo qurbajooga gobolada Sildhiga iyo Awdal haddii aan ka bixiyo baahiyaha caafimaad ee haysta deegaankan Calaxayd waxaan noo dhisan 3 qol oo caafimaad oo masiish ku magacaaban ilaa haddana aniga oo kaliya oo daryeelada dhex jooga qolada kale caafimaadka qaar mushaar loo waayo iska taga iyo qaar xitaa lagu shaqeynayay ilaa hadda ma jiraan sida qalabka baarista oo naga maqan dawladda way noo yimaadaan laakiin waxa naga maqan qaybtii baarista oo dhan iyo dhaqaatiirtii nerstan baahnayeen dadka maalka wuxuu qaban lahaa midda kale MCH-ku waa 3 qol waxa dhisan intii kale waa ka qabiyo oo aad buu soo qabiyahay dawladda lafteeda gobolka waxaan la gees oo si googa iyo nugina marmar anaka doonayta la iska dhigo gobol ma xabba ka kale inta la dhigo yaan doonaa anagu intaan karis ka bixino aan doonaa midda kale ilaa hadda mishaar milihin waxaan ku shaqeynaa tabarra هذا هو الفيشن بقى نسيسا أبو 6 مرمر كنت أقول سكر جوه استطاعت دونتو لكن أنت كله حق الدولة ده ممكن الله مش عارف متشرو حتى عم تجران ضمن أنت بنجد هستو بسكر رام ما ليش يكون دريان ما هيان واحد ما ضغط وبرن أو ضمن رام متشران ضمن ما ثم صدق ما يسكع عادي أو مو يعني طبعا وأنا كذا حتى إنه موجود أنا قف السوق هاي الماضي هاي يعني كلا أنا حتى أنا كرين ساسد باهي عافمات من آديات أنه هو اللي ذاتها هذا حق دوت هاي هذا حق مالتا خبرت هاي هذا حق بارسات هاي حق والبقاد بنو قلي ذنا أما كمان هايها عادة تقول بجوكت إياه هايها إيو ما حدا قميديا وحين توقع أصلاً إن أي نجا عويان سيد اللي نقول ميستر لها إمسيش كاسي باهي سجود عافماتها هذا نقطة بعد عافماتك أيوة بهنا يو قلب كيو بهنا يداوي كيو تاسب سكوين